dambeeyay in muuska Soomaaliya inuu aad iyo aad u burburay hoos u dhac weyn uu ku dhacay taariikhiyan waxaan ognahay dagaalkii ka hor muuska Soomaaliya in la dhoofin jiray marka waxaa jiray nidaam isku xiran dawladdana ay ku xirneed private sectors ay ku xirnaayeen beerleydan ay ku xirnaayeen share agreement oo labada galay ayaa jiray oo ay ka wada shaqeynayeen marka burburkii ka bacdi wixii dhan waa baaba'een infrastructure-kii waraabkii iyo nidaamkii loo isticmaalayay wixii dhan waa burbureen sanadahan oo na soo dhaaftay 30 sano horumar badan ayaa muuska laga gaaray oo mataqaanaa yani si casri ah ayaa hadda loo beertaa muuska marka hababka lagu soo celin karo ayaa waxaa ka mid ah in la soo celiyo nidaamyadii hore wax loo beeri jiray in addition hadda waxaa soo baxay gadaasheen wax la yiraahdo tissue culture marka tissue culture macnaheedu waxa waaye beerleyda in loo diyaariyo abuur ama plants geed oo diyaarsan geedo oo siman oo ka xuraysan ama ka nadiifsan cudurro iyo cayaamo beero oo markaas geedo oo markaas diyaar yihiin markii la suro oo isla markii hore mataqaanaa oo cimilada iyo dhulka ay la qabsan karaan filsan ayaan jecelnahay hadda inaan ka howlgalno hawl ay u baahan tahay waxay u baahan tahay in laboratory loo sameeyo oo lagu diyaarinayo hawshaasi geedo nadiif ah oo la test gareeyay cudurrada laga baaray oo iyadoo diyaarsan oo markaas beerleyda ay isticmaali doonaan marka taas hawl aan ku howlanahay waaye aan rajaynayno mustaqbalka dhow inaan soo saarno si aan u siino beerleyda fursaddaas ay kaga faa'iidaysan lahaayeen tissue culture banana